ujeeddadu ay tahay inaan ku daafurno howl wasaaradda waxbarashada maalmahan ay aad ugu taxalluqsaneed adiguna aad xogaal u ahayd naguna dhiirigelisay waana kaaga mahad celinaynaa dhiirigelinta iyo maanta meesha aadna soo gaarsiisay mudan madaxweyne maanta munaasabadaan iskugu nimid sidaa ka warqabtid waxaa weeye munaasabad hal sano shaqadooda ay socotay kaalinta ugu weyna adigoo aad lahayd mudan madaxweyne waxaa maanta ku hor yaallo oo aad aragtaa tallaabo weyn oo aan hore u qaadnay haddaan nahay wasaaradda waxbarashada iyo xukuumaddaadaba ee la xidhiirto manhajka ummadda soomaaliyeed waxaad la socotaa in ay guul xukuumaddaadu ay u ahayd in 47 manhaj oo kala duwan oo midba meel ka yimid yemen suudaan kenya etoobiya maraykanka ingiriiska indiya meel walba laga keenay in maanta uu midoobay oo waddanku leeyahay hal manhaj sanadkii hore waxaa sharaf weyn noo ahaa inaadna soo sharaftay oo aad nagala soo qayb gashay 2 munaasabad oo iskor fuusho ahayd inaan iskuullana markii u horraysay la soo wareegnay manhajkii bugaagtii manhajka fasalka koowaad ilaa fasalka afaraadna aad nagu sharaftay ood goob joogka ahayd qaybintooda iyo taabagelinteeda waxaan rabaa inaan ku warbixiyo in arrintaas liibaan weyn laga gaaray oo manhajka uu hirgalay fasalka koowaad ilaa fasalka afaraad maanta meesha waxaan u taagannahay ilaa fasalka 8aad oo isna soo dhammaaday muddadaas gaaban gudaheeda oo maanta munaasabaddu ay tahay 1,040,000 oo buug oo wax lagu baraayo carruurta u dhaxayso fasalka koowaad ilaa fasalka 8aad runtii waa wax ammaan weyn ah taasna ilaahay mahaddiisa ayay ku gaartay iyo dadaalka xukuumadda maanta waddanka ka taliso ee adigu hoggaankeeda tahay mudan madaxweyne waxaa kale oo maanta la qaybinayaa oo hawsheedu bilaabatay 102,000 oo buug oo loogu talagalay macallimiinta dhigaysa manhajka inay iyaga siday wax u dhigi lahayn ay ka bartaan waxaa fursaddan ka faa'iidaysan doono 300,000 oo arday Soomaaliyeeda oo fasalka koowaad ilaa fasalka 8aad ee u dhaxayso waxbarashadooda taa macnaheedu wuxuu yahay 915 iskuul ayaa buugtani ay gaari doontaa haddii eebba idmo buugtan oo runtii juhdi badan laga soo galay waxaan rabaa inaan hortaada ammaan uga soo jeediyo howlwadeennada wasaaradda waxbarashada iyo dhammaan bahda waxbarashada hadday yihiin dalladaha hadday yihiin maamulada iskuulaadka oo kulligood dadaal badan muujiyey sidii maanta meesha aan joogno aan u imaan lahayn waxaan jecelahay inaan ammaan u soo jeediyo shirkad maxalli ah oo waddanku leeyahay oo aan ajnabi ahayn oo runtii isku taxalluujisay maantay meesha aan joogno inay wax naga soo gaarsiiso shirkaddaas oo la yidhaahdo beder waa maalgelisay waa soo daabacday wax aad u weyn oo lagu ammaano ayay tahay waxaan jecelahay hortaada inaan ka magacaabo kaalinta ay galeen mudan madaxweyne waxaa hortaada yaallo bugaagtii 1 milyan ahayd sambalkood waxaan jecelahay inaad indhaha ku soo aragtid fasallada oo la fadhiyo oo bugaagtii laga isticmaalayo waxaan kaloon kaa codsanaynaa madaxweyne in taageerada anoo og in taageeradaadu mar walba nala joogta haddaan nahay bahda waxbarashada in taageeradaada aad noo labalaabtid maxaa yeelay markaad adigu ahmiyad bixisid ahmiyaddaas way faaftaa waxay ku faafaysaa cid walba sida aan horey kaaga barannay safarkii hore waa ka liibaannay muuqaalkaaga maantana waxaan jecelnahay inaan sidoo kale u liibaanno waxaan rabaa inaan ku soo ganaanudo hadda waxaa loo fadhiyaa oo 38 aqoon-yahan oo Soomaaliya ay u xaraysan yihiin
qoritaanka fasalka 9aad ilaa fasalka 12aad iyadana waxaan rajaynaynaa haddii la yiraahdo sana dugsiyeedka hadda soo socdo in iyadana la isticmaalo buugtaas wixii intaas soo raaco waa in la tayeeyo buugta arkaysid waa in mataqaanaa waxaan hiigsanaynaa inaan muxuu ahaa platform oo electroniga aan gelinno si ardada ay ugu yaraato ugu raqiis ugu noqoto buugaagtu marka meeshaasaan ku hayaamaynaa sidii tilmaantaada awalba ay ahayd waxaan kaaga mahad celinaynaa muuqaalka iyo sharafta aad maantana sharaftay si aad nagala qayb gashid daafurka 1,040,000 oo buug iyo 102,000 oo macallimiinta lagu tababarayo madaxweyne soo dhawow waxaan ka codsanaynaa inaad noo launch garaysid inaad noo daafurtid si isticmaalka buugta ay u bilaabato kelimadaadu ku habbooneedna aad noo tiraadid